إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. sida aan ogsoonnahay sanad walba markii la gaaro bisha rabiicul awal waxaa muslimiinta dhexdooda bilowda su-aalo isweydiiyaan iyo khilaaf ay iskhilaafaan oo ku saabsan in loo dabaaldego dhalashada nebiga calayhi salaatu wassalaam ama mawlidka nebiga calayhi salaatu wassalaam in la dabaaldego ayaa la isku khilaafaa. arrintaasina caalamka muslimiintoo dhan way ka saman yihiin. waxay dadka u qaybsamaan kuwa ayidaya oo dhahaya way bannaan tahay iyo kuwa dhahaya ma bannaano. sidaa darteeda insha allahu tacaala muxaadaradan waxaan uga hadli doonaa sharciga waxa uu ka qabo in la ixtifaalo nebiga dhalashadiisa calayhi salaatu wassalaam, innagoo muxaadarada aan u qaadan doono su-aal iyo jawaab si markaa qofka muslimka ah su-aal walba ku imaan kara uu u fahmo jawaabteeda. lidalika aqulu mustaciina billah. su-aasha koowaad, awalan maxaa loola jeedaa macnaha alixtifaalu bilmawlid? maxaa loola jeedaa macna ahaan? aljawaab, jawaabtu waxay tahay alixtifaalu bilmawlid macnaha waa ijtimaac dadka ay isu yimaadaan farxad iyagoo markaa u dabaaldegaya xuska dhalashada nebiga calayhi salaatu wassalaam. waxayna ku kulmaan meelo lagu khasisay in lagu ixtifaalo ama masaajidda iyagoo markaa qur-aan la aqrinayo, siirada nebiga calayhi salaatu wassalaam la aqrinayo iyo qasaa-id lagu ammaanayo nebiga calayhi salaatu wassalaam. si jamaaci ah ayaa loo aqriyaa. dabaaldegaasi marka ama ixtifaalkaasi wuxuu bilowdaa bisha bilowgeeda rabiicul awal ilaa laga gaaro maalinta 12aad. maalinta 12aadna wadamada muslimiinta oo dhan in badan muslimiinta way isu yimaadaan, qasaa-idaas aan soo sheegnay ayay isla qaadaan oo ay aqriyaan, nebiga siiradiisa ayay ka sheekeeyaan, waa la ixtifaalaa, cuntaa la cunaa, cabitaanaan la cabaa, dadka qaar wadooyinka way qurxiyaan, qaarna caruurtooda dhar cusub bay u gadaan. almuhiim waa ixtifaal oo loo ixtifaalayo farxaddaasi dhalashada nebiga calayhi salaatu wassalaam. taasaa waxaa la yidhaahdaa alixtifaalu bilmawlid. su-aasha labaad, rasuulka calayhi salaatu wassalaam goormee la dhalay? culimmadu waxay isku itifaaqeen inuu dhashay sanadka la yidhaahda caamulfiil. waa sanadkii la halaagay abraha iyo jeeshka ciidanka u watay oo rabay inay ku duulaan maka, beytka allah subxaanahu wa tacaala. rabbi wuxuu usoo diray shimbiro markaasuu halaagay shimbirahaasi oo tarmiihim bixijaaratin min sijiil fajacalahum ka casfin mackuul. sanadkaasi ayaa waxaa lagu magacaabay caamulfiil, waana sanadkii uu rasuulka dhashay calayhi salaatu wassalaam. sidoo kale waxay culimmadu isku itifaaqeen maalinta uu dhashay inay ahayd maalin isniin.
sababtoo ah rasuulka ayaa caddeeyey calayhi salaatu wasalaam xadiid saxiixa. laakiin bisha uu dhashay iyo maalintay ahayd culimmadu way isku khilaafeen. waxay kutubta siirada iyo taariikhda ay qoraan oo ay u bateen bisha rabiicul awal inuu dhashay, laakiin maalinta waa laisku khilaafa. qaar waxay yidhaahdeen maalinta 12 ayuu dhashay, qaarna waxay yidhahdeen maalinta 14, qaarna waxay yidhahdeen maalinta 16. idan maalintuu dhashay waa laisku khilaafay. khilaafkaasi waxaa keenay awalan markii uu rasuulka dhalanayay calayhi salaatu wasalaam lama ogeyn inuu rasuul yahay. taasaa keenta marka in la garan waayo. laakiin waxay culimmadu isku itifaaqeen sidoo kale maalintuu dhintay, sababtoo ah maalinta uu dhintay rasuulka calayhi salaatu wasalaam atbaac badan ayuu lahaa. saxaabadiisa ayaa joogay oo noo soo guurinayay xitaa sida uu u dhintay. marka maalintuu dhintay waxay ahayd bisha rabiicul awal maalinta 12. idan ixtifaalka la ixtifaalo maalinta 12 ee bisha rabiicul awal waa laisku khilaafay inuu rasuulka dhashay maalintaas, laakiin waxaa laysku itifaaqay inuu maalintaasi dhintay. idan dadka maxay u dabaaldegaan? ma dhimashadiisii mise oo laisku itifaaqay maalintaasi inay tahay, mise dhalashadiisoo khilaafka taagan? su-aasha saddexaad, sharciga muxuu ka qabaa ixtifaalkaasi mawlidka la ixtifaalo? aljawaab, jawaabtu waxay tahay ma banaano in la ixtifaalo. sharci ahaan ma banaano, lama ixtifaali karo. maxaa daliil u ah? 3 arrinba ayaysan ku banaaneen in la ixtifaalo. arrinta koowaad, nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu naga reebay in la ciido oo la ixtifaalo waxaana ahayn ciidulfitri iyo ciidul adxaa. wuu naga reebay calayhi salaatu wasalaam. waxaa daliil u ah xadiid waxaa jira oo saxiix ah oo ay soo saareen imaamu abu daa-uud iyo imaamu nasaa-i, imaamu axmed. waa xadiid anas uu warinaya radia allahu canhu. anas wuxuu yiri rasuulka wuxuu yimid calayhi salaatu wasalaam magaalada madiina, waa markii uu soo hijrooday. wuxuu yiri walahum yowmaani yalcabuuna fiihimaa. reer madiina waxay lahaayeen 2 maalin oo ay dabaaldegi jireen oo ay ciyaari jireen. markaasuu rasuulku wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam maa haadaani alyowmaan, waa maxay 2 maalin aada ciidaysaan oo aada ciyaaraysaan? markaase waxay yidhaahdeen kunnaa nalcabu fiihimaa fi ljaahiliya, waqtigii jaahiliyadaan ciyaari jirnay oo aan ciidi jirnay. markaasuu rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam qad abdalakum allahu bihimaa khayra minhumaa. alla wuxuu idinkugu bedelay 2 maalin ka khayr badan maalmaha ciidaysaan, yowma aladxaa wa yowma alfitri. 2daas maalina idinkugu bedelay, ciidul adxaa iyo ciidulfitri. idan wuxuu rasuulka ka reebay calayhi salaatu wasalaam 2daasi maalmood inay ciidaan. wuxuu yiri waxaa laydinkugu bedelay 2 maalin kale oo ciidulfitri iyo ciidul adxaa. xadiidkaas waa xadiid saxiixa. waxaa saxiixiyey xaafid ibnu xajar alcasqalaani kitaabkiisa fatxulbaariga ayuu ku saxiixiyey. sidoo kale imaamu albaqawi, sheekh albani, wakadalika shucayb alarnaawud, culamaau lxadiid way saxiixiyeen xadiidka. xadiidkaasi marka maxaa ku sugan? inaan la ciidi karin oo la dabaaldegi karin waxaan ahayn ciidulfitri ciidul adxaa. idan ixtifaalka nebiga calayhi salaatu wasalaam dhilashadiisa loo ixtifaalayo oo loo dabaaldegayo waa ciid aan rasuulka calayhi salaatu wasalaam noo banaynin. amaa arrinka labaad oose ku banaaneen
waxaa ka mid ah ixtifaalka nebiga calayhi salaatu wasalaam loo ixtifaalo ma sugnaanin, rasuulka ma samaynin calayhi salaatu wasalaam, walaa asxaabtiisii ma samaynin, qur-aanka ilaahayna kuma sugna. idan wuxuu noqonayaa arrin bidca ah. bidca waxaa la yidhaahdaa qofka shay walba uu sameeyo ilaahay uu ugu dhowaanayo oo aan kitaabka ilaahay sunnada rasuulka ku jirin. arrintaasina digniin badan ayuu ilaahay qur-aankiisa nooga digay, sidoo kale rasuulkana nooga digay calayhi salaatu wassalaam. waxaa ka mid ah aayadda rabbi uu yidhi subxaanahu wa tacaala: am lahum shurakaau sharacuu lahum min addiini maa lam ya'dan bihi illaah. rabbi wuxuu yidhi am lahum shurakaa, ma waxay leeyihiin shuraka miyay leeyihiin oo ay rabbi cibaadadiisa la wadaajiyaan, shurakadaasoo sharacuu lahum u sharciyeeyey min addiini diinta uga sharciyeeyey maa lam ya'dan bihi illaah, wuxuusan allah idmin. ma waxay leeyihiin shuraka oo diinta u sharciyeeyey waxaanan ku jirin ilaahay idmin. idan wuxuusan ilaahay idmin, uusan amrin ama uu sharciyeynin, qofka cibaado ahaan uma samayn karo, wa ilaa wuxuu noqonayaa qof diin cusub la yimid. cabdullaahi ibnu cabaas radia allahu canhuma aayaddaa markii uu fasirayay, sida imaamu lbagawi uu soo guriyey, wuxuu yidhi sharacuu lahum diinan gayra diin alislaam, waxay u sharciyeeyeen diinta islaamka diinaan ahayn. lianna diinta islaamka waa diintuu ilaahay noo sharciyeeyey, kitaabka qur-aanka iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam sunnadiisa. waxaana ku jirin waa wax cusub, waa bidca. amaa digniinka rasuulka uu nooga digay waxaa ka mid ah xadiidka saxiixa ah oo ay culamaa ulxadiid ku tilmaameen sanadkiisa inuu xasan yahay. waa xadiidka cirbaad ibnu saariya uu warinayo. cirbaada wuxuu yidhi rasuulka ayaana wacdiyey calayhi salaatu wasalaam maalin mawcidatan baliiqa, wacdi oo xel dheer ayuuna wacdiyey. markaasaa indhihii way ilmeeyeen buu yidhi, quluubtiina way baqeen. macnaha wacdigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa wacdi aada u xel dheer. markaa cirbaad wuxuu yidhi faqaala rajulu, ninbaa wuxuu yidhi ina haadihi mawcidatu muwadac, wacdigaani waa wacdi sagootin, kaanamaa rasuulka inuuna sagootinayo kale. markaasuu yidhi famaada tachad ilayna yaa rasuul allah, rasuulka ilaahay maxaad nooga tegaysaa oo noo dardaarmaysaa. markaasuu rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam uusiikum bitaqwa allah, taqwada ilaahay, cabsida ilaahay baan idinkaga tegayaa, waasamci waataaca, iyo inaad maqashaan qofkii mas-uulka idin ah, ra-iiskiina madaxweynihiina inaad maqashaan, warkiisana aada ateecdaan ayaan idinkaga tegayaa. wa in cabdun xabashi, xataa haddii uu yahay addoon oo xabashi ah, maqla warkiisa, amarkiisana ateeca. markaasuu rasuulku wuxuu yidhi fainahu man yacish minkum yaraa ikhtilaafan kathiira, qofkii noolaaday idinka idinka mida oo cumrigiisa ilaahay u dheereeyo, ikhtilaaf badan buu arki doonaa. wa iyaakum wa muxdathaati alumuur, waxaan idinka digayaa buu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha diinta lagu soo daro. waa digniin. wuxuu ummadiisa rasuulka uga digay muxdathaat alumuur. muxdathaat waxaa la yidhahdaa waxa cusub. alumuur ay umuur diin, umuurta diinta waxa cusub oo lala yimaado waan idinka digayaa buu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam. fa inahaa dalaalatun, waa baadi buu yidhi. wax cusub in diinta lala yimaado waa arrin baadi ah. faman adraka dalika minkum, qofkii waqtigaasi haleela oo gaara, waa waqti ay bilaabanayso ikhtilaaf fara badan, muslimiinta inay iskhilaafaan, diintana wax cusub in lala yimaado. markaas haddii aad gaartaan
nebigu wuxuu yidhi facalayhi bisunnatii, qofkaasi waxaa dushiisii ahaaday oo laga rabaa sunnadayda, jidkayga inuu qaado, wa sunnati alkhulafaa'i alraashidiin, iyo jidka khulafada raashidiin waa abubakar iyo cumar iyo cuthmaan iyo cali radia allahu canhum, jidkooda qaada buu yihi rasuulka calayhi salaatu wassalaam. micnaha wixii aniga iyo saxaabadeeda khulafaa raashiduun jidkay mareen, jidkaasi qaada, ha ka leexanina. waa markay bilaabato khilaaf iyo waxyaabo cusub oo diinta lagu soo daro. xadiidkaasi marka waa xadiid sanadkiisu uu xasan yahay. waxaa soo saaray imaamu abu daauud, imaamu tirmidi, wuxuuna yihi hada xadiidun xasan, wakadalika ibnu maaja, imaamu axmed. xadiidku sidoo kale waxaa xasanay xaafid ibnu cabdilbar, xaafid almundiri, imaamu dahabi, intaba xadiidku waxay ku tilmaameen inuu yahay xadiid xasan ah. haddaba xadiidkaasi waxaa ku sugan nabiga calayhi salaatu wassalaam digniin uu nooga digay inaan la imaano waxaan diinta ku jirin. sidoo kale jaabir bnu cabdillaahi radia allahu canhuma, isagana waxaa laga wariyay xadiid saxiix ah, imaam muslim iyo imaamu nasaa-i, imaamu axmed ay soo saareen. wuxuu yihi jaabir, rasuulka calayhi salaatu wassalaam kaana idaa khataba, wuxuu ahaa haddii uu khudbeynayo wuxuu dhihi jiray amaa bacdu, intaas kadib, fa ina khayra alxadiidi kitaabullah, xadiid war waxaa ugu khayr badan waa kitaabka ilaahay, kalaamkiisa subxaanahu caza wajal. wa khayra alhudaa hudaa muxamed, hanuunna waxaa ugu khayr badan hanuunkii nabi muxamed calayhi salaatu wassalaam, macnaha jidkiisa. wa shara alumuuri, umuurna waxaa ugu shar badan, arrin lala yimaado waxaa ugu daran ugu xun, muxdathaatuhaa, waxyaabaha cusub. macnaha diinta wax lala yimaado waxaa ugu xun buu yihi rasuulka, ugu shar badan waxa cusub oo diinta lala yimaado. markaasuu yihi wa kullu bidcatin dalaala, wax walba oo diinta aanan ku jirin oo lala yimaado waa baadi. micnaha qofkaasi waa qof dhumay, dariiqa toosan ayuu ka dhumay. xadiidkaasna waxaa ku sugan rasuulka inuu noogu cadeeyey calayhi salaatu wassalaam, wax aanan diinta ku jirin in lala yimaado waa shar waxa ugu xun, waana baadi qofka dariiqa xaqa uu ka leexanayo. sidoo kale caaisha waxaa laga wariyey xadiid muttafaq ah, waxay tiri rasuulkaa yihi calayhi salaatu wassalaam, man axdatha fii amrina haada, diinteena kan ah qofkii wax ku soo daro oo cusub oo sameeya, maa laysa minhu waxaanan ku jirin, fahuwa raddun, isagay marduud ku tahay, lagama aqbalayo. idan adilooyinkaasoo dhan waxay tilmaamayaan inaan diinta lala imaan karin wax cusub oo aan kitaabka ilaahay ku jirin, sunnada rasuulka calayhi salaatu wassalaam axaadiistiisana aanan ku jirin, lalama imaan karo. marka ixtifaalka la ixtifaalayo dhalashadii rasuulka calayhi salaatu wassalaam, kitaabka ilaahay kuma sugno, sunnada rasuulkana kuma sugno. maxay noqonaysaa marka? waa wax cusub lala yimid oon rasuulka ogeyn, waana miduu rasuulka nooga digay, waa bidcada. taasna waa dhinaca labaad. dhinaca saddexaad, waxaanu ku banaanayn mawlidka, waa qofka ku dayasho uu ku dayashanayo gaalada. lianna waxaa macruufa aan ognahay, gaalada waxay dabaaldegaan dhalashada nebi ciise calayhi salaam, ciidda ay yidhaahdaan christmas. maxay u dabaaldegaan? waa dhalashada nebi ciise, maalintaasoo dhashay yidhaahdaan. qofka markaa haddii uu yidhaahdo anigana waxaan u dabaaldegayaa maalintuu rasuulka dhashay calayhi salaatu wassalaam, haddii aan kitaabkii sunnada ku jirin, micnaha gaaladuu kaga daysaday ficilkay sameeyeen, waana miduu rasuulka nooga digay calayhi salaatu wassalaam. xadiid saxiixa imaamu abu daauud, imaamu axmed ay warinayaan, nabigu wuxuu yihi man tashabaha biqowmin fahuwa minhum, qofkii qoom isku ekeysiiya iyagoo
la mid yahay, macnaa iyagoo ka mid yahay. gaalada haddaa isku ekaysiisid ayaad ka mid noqonaysaa. fa hada laa yajuus. qofka muslimka waa inuu aada uga taxadiro. sidoo kale xadiidka mutafaqa ah bukhaari muslim ay warinayaan oo abu saciidin alkhudri laga wariyey, rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wassalaam, latattabicunna sanana man qablakum shibran bishibrin wa diraacan bidiraac. ummadihii hore wadadoodaad qaadaysaan, taako taako iyo dhudhun ayaa u daba soconaysaan, xataa low salakuu juxra dabbin la salaktumuuhu. god abeeso haddii ay qaadaan waad ka daba qaadaysaan. markaasaa saxaabada waxay yidhaahdeen, alyahuudu waannasaara yaa rasuul allah, ma yahuudi i nasaara dadka aan dabagalayno? qaala wuxuu yihi rasuulka, faman, yaa kale? iyaga ayaad ku daysanaysaan wadaday qaadaan. marka waa inuu qofka muslimku ka taxadiro. waxay gaalada sameeyaan waa in la khilaafo. markii la fiiriyo rasuulka calayhi salaatu wassalaam wuxuu amray in gaalada la khilaafo. xitaa yowmu cashuura markii uu soomay oo loo sheegay yahuuddana inay soomaan, wuxuu yihi sanadka soo socdo maalinta 9aad soomaya. yahuudda iyo nasaarada in la khilaafaa la rabaa. marka nasaarada kirishtaanka iyaga uu u dabaaldego dhalashada nebi ciise, muslimiinta inay ku daysadaan ma ahan haddii aanan rasuulka ka sugnaanin calayhi salaatu wassalaam. su-aasha afaraad, mowlidkan nebiga calayhi salaatu wassalaam loo dabaaldegayo intee laga keenay? haddaan kitaabka ilaahay ku jirin iyo sunnada rasuulka calayhi salaatu wassalaam, yaa bilaabay? intee ka yimaadeen? aljawaab, jawaabtu waxay tahay qarniga 4aad, macnaha 400 sano markii la gaaray hijiriyada, waqtigaasay bilaabatay oo wax yar dhiman. waxaana bilaabay dowladda faatimiyiinta la yiraahdo, oo cabaasiyiinta markay noolaayeen dhexdooda ku dhex abuurmay. ixtifaalka nebiga calayhi salaatu wassalaam keliya ma qabin, waxay u ixtifaali jireen maalinta cashuura, waxay ixtifaali jireen dhalashada cali bn abi aalib, dhalashada xusein, dhalashada xasan, dhalashada faatima. bisha rajab awalkeeda, nisfi rajab markii la gaaro, awal shacbaan, nisfu shacbaan, iyo ciidda nayruus iyo wixii lamid ah. ciido fara badan bay lahaayeen. waxay marka u sacyinayeen inay dowlad noqdaan, si markaasi dadka muslimiinta ay usoo dhaweystaan. gaajana way jirtay, waxay dhaheen marka ixtifaalaadkaasaan sameynaynaa. cuntay bixi jireen. halkaasi ka bilaabatay marka ixtifaalkaasi faraha badan ayaa jiray. waqtiguu bilowday waa waqtigii uu joogay muciz lidiin illaahi alfaatimiy, ninkaa la yiraahdo, waqtigiisii ayuu bilowday. faatimiyiintana qasadkooda siyaasad bay ka ahayd, inay dadka soo dhaweystaan. meeshaasay ka bilaabatay. dhalashada nebiga calayhi salaatu wassalaam ay u dabaaldegi jireen ayaa kasoo haray, iyo rajab iyo shacbaan nisfi in la dabaaldego ilaa hadda wadamada qaarkooda way ka jirtaa. marka waa arrin halkaasi ka bilaabatay, laakiin wixii ka horeeyo dhan lama aqoonin in la dabaaldego dhalashada rasuulka calayhi salaatu wassalaam. su-aasha shanaad, dadka banaysanaya oo dhahaya ixtifaalka way banaan tahay, waxay soo daliishadaan xadiid rasuulka uu yiri, man sanna fi lislaami sunnatan xasana falahu ajruha wa ajru man camila biha bacdahu. qofkii islaamka ku jideeya sunno wanaagsan, ajirkeeduu leeyahay, iyo qofkii ku camal falo ajirkiisa ayuu helayaa. marka waxay dhaheen ixtifaalka nebiga in loo ixtifaalo waa sunno wanaagsan, waa arrin wanaagsan. xadiidkaasaa daliil u ah. iyo waxay usoo daliishadeen hadalkii cumar radia allahu canhu uu yiri, nicma albidcatu haadihi, bidco midaana ugu wanaagsan. macnaha waa bidco wanaagsan buu yihi arrintan. markaase waxay ku andacoodeen oo yiraahdeen
bidcada waxaa ka mid ah bidca xasana oo wanaagsan. diinta wax waa lagu soo dari karaa, wixii lagu soo daro oo bidcadana way kala qaybsan tahay. bidca xasana ayaa jirta bay yidhaahdeen, in nebiga loo dabaaldego, la weyneeyo oo loo tawqiiriyo oo la xuso dhalashadiisii, waa arrin wanaagsan bay dhaheen. aljawaab, jawaabta lagu jawaabayo waxay tahay, awalan islaamka ma yaqaano waxa la yidhaahdo bidca xasana iyo bidca sayi ah iyo bidca mustaxaba, iyo waxay kala qaybinayaan wax jira ma aha. waxaa daliil u ah xadiidkii aan soo qaadanay, nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi, wa kullu bidcatin dalaala. bidco walba, kullu maxaa wey macnaha? waa cumuum, wax alla wixii bidco ah oo diinta lagu soo daro waa baadi. idan bidca xasana intay ka timid? xadiidka nabiga uu yidhi, man sana fi lislaami sunnatan xasana, waxaa loo baahanya qofka muslimka awalan inuu xadiidka awalkiisa ilaa aakhirkiisa uu aqriyo, si uu u fahmo kelimadaasi waxaa loola jeedo man sana fi lislaami sunnatan xasana. xadiidka waxaa warinaya jariir ibnu cabdillaah radia allahu canhu. wuxuu yidhi, dad oo reer baadiye ah ayaa rasuulka u yimid oo jirkooda rafaad iyo baahi ay ka muuqato. markaasuu yidhi, fara'aa rasuulu llahi sala allahu calayhi waaalihi wasalama suu'a xaalihim, xaaladooda xumaanta ay ku sugan yihiin ayuu arkay. qad asaabathum xaaja, xaajo baahi ayaa asiibay. markaasuu nabiga calayhi salaatu wasalaam xaha annaasa cala sadaqa, dadkiiu ku booriyey. bacda riwaayaat, salaada markii uu dukada ay rasuulka calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisii muslimiinta ku booriyey inay sadaqa baxsadaan oo ay dadkana u kaalmeeyaan. wuxuu yidhi jariir, fa abdacuu canhu, sadaqadii way ka daaheen, micnaha waa la wada aamusay. markaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam wejigiisii ayaa laga dareemay buu yidhi jariir, wuu ka xumaaday arrintaasi. markaasaa waxaa istaaga buu yidhi rajul min alansaar, nin ansaarta ka mida ayaa istaagay. markaasuu wuxuu keenay sura oo min waraqin ah. sura waxaa la yidhaahdaa lacagaha waxa ay ku qaadan jireen kiis yar, kiis oo wuxuu la yimid oo waraqa ay ku jirto qalin. markaasuu meesha soo dhigay, isagaa bilaabay. markaasaa jariir wuxuu yidhi, uma jaa aakhar, nin kalaa ayaa yimid. uma tataabacuu, dadkiia isku dabadaysaday. nabiga calayhi salaatu wasalaam markii uu arkay dadkii oo dhan inay isku dabadaysadeen oo ay sadaqada wada bixinayaan, wejigiisii farxad ayaa ka muuqatay buu yidhi jariir. markaasuu rasuulku wuxuu yidhi, man sana fi lislaami sunnatan xasana, qofkii islaamka jideeya sunno wanaagsan, fa cumila biha bacdahu, sunnadaas uu jideyna lagu camal falo, kutiba lahu mithlu ajri man camila biha, waxaa loo qorayaa qofkii ku camal falay ajirkiisoo kale ayaa kii hore bilaabay loo qorayaa. idan muxuu ku yimid xadiidka? ninkii hore bilaabay sadaqada ayuu rasuulku ula jeeday calayhi salaatu wasalaam. macnaha sadaqadii ayuu bilaabay, dadkiina way ku daysadeen. wahaakada, qofkii khayr bilaabo sunna xasana, taasaa loola jeedaa. micnaha in la ta'wiiliyo ma aha. dadka iyagoo qaflo ku jira oo sheekaysanaya, qofkii dhinac inuu u baxo kitaab qur-aan qiraa'o bilaaba, dadkii ay ku dabadaysadaan, qofkaasi sunna xasana buu bilaabay. bidca muu la yimid? lama imaanin. sadaqa oo la baxsado ma bidca? bidca ma aha. idan man sana fi lislaami sunnatan xasana waa ninkii jideeya oo bilaaba arrin wanaagsan oo sharci ah, mashruuc ah. waxaan mashruuc ahayn waa bidca.
amaa qowlkii cumar uu yiri nicma albidcatu haadihi, cumar radia allahu canhu bidca muu sameeyey? bidca ma sameynin. wuxuuna qowlkaasi ku yimid markii uu salaada taraawiixda muslimiinta uu kulmiyey uu imaam u sameeyey, sida cabdiraxmaan ibni cabdi laga warinayo. taraawiixda inuu imaam u sameeyana bidca ma ahan, lianna rasuulka calayhi salaatu wasalaam dukaday, sida caaisha laga wariyey lmuminiin, xadiid muttafaq ah bukhaari muslim ay soo saareen. nabiga calayhi salaatu wasalaam caaisha waxay tiri maalin buu masjidka ku dukaday, maalin ramadaan, habeen ramadaana, dadkii baa la dukaday. uma sallaa min alqaabila, maalinta habeenkii labaad ayuu dukaday haddana. fakahura annaas, dadkii way soo bateen. uma ijtamacuu min alleylati athaalitha, habeenka saddexaad dadkii oo dhan ayaa isku yimid. falam yakhruj ilayhim, caaisha waxay tiri nebiga uma bixin calayhi salaatu wassalaam. markii waaga u baryey ayuu nebigu wuxuu yidhi qad ra'aytu aladii sanactum, wixii aada samayseen waan arkay. falam yamnacnii min alkhuruuji ilaykum, inaan idin soo baxo oo aan idin dujiyo igama manicin, ilaa inii khashiitu an tufrada calaykum, waxaan ka baqay in laydinku fardi yeelo. wadalika fii ramadaan, caaisha waxay tiri ramadaan bay ahayd. idan habeenka koowaad nebiga wuu dujiyey, habeenkii labaad wuu dujiyey, habeenkii saddexaad wuxuu ka baqay haddii uu dujiyo in lagu fardi yeelo ummadiisa oo ay awoodi waayaan. wuu ka haray markaa, sidii uu istaagtay. idan in jamaaco la dukado habeenka ramadaanka sunno ma tahay mise ma aha? waa sunno. nebigaa dukada calayhi salaatu wassalaam. wuxuu oga tagay baqdin ummadiisa u baqay. waqtigii abubakar dadka siday u dukanayeen. waqtiga cumar ayuu cumar wuxuu arkay dadkii oo masaajidka qayb u dukanaya, wuu kulmiyey, imaam buu u sameeyey. arrintaas bidca miya? ma ahan, waa sunno. ilaa nebigaa laga wariyey calayhi salaatu wassalaam. cumar habeen kale buu soo maray, wuxuu arkay dadkii oo imaamka la dukanaya salaada taraawiixdeed. markaasuu yidhi nicma albidcatu haadihi, bidco midaana ugu wanaagsan, midaana waa mid wanaagsan. wuxuu ula jeedaa arrintuu sameeyey arrin la yaqiini ma ahan, laakiin waa sunnada rasuulka calayhi salaatu wassalaam. wuu nooleeyey, sunnadiiyuu nooleeyey. taas bidco ma aha, ee luqad ahaan ayuu bidco ula jeedaa oo ah wax la yaqiino ma ahayn. waqtigii nebiga bacdigiisa lama aqoonin. wuu nooleeyey radia allahu canhu cumar. markaasuu yidhi nicma albidcatu haadihi. idan kelimadaasi in la ta'wiiliyo oo la yidhaahdo bidca xasana wey, bidca ma aha taas. rasuulkaa jideeyey. inamaa bidca waxaa la yidhaahdaa wixii aan diinta ku jirin, aan rasuulka jideynin, ilaahayna qur-aankiisa aan ku sugnayn, taasaa la yidhaahdaa. su-aasha lixaad, sidoo kale waxay dadkaasi soo daliishadaan, waxay yidhaahdaan rasuulka calayhi salaatu wassalaam maalin isniinuu soomay. markii la weydiiyena wuxuu yidhi fiihi wulidtu, maalintaasaan dhashay. idan rasuulku wuu soomay, in la dabaaldego maxaa diidaya? aljawaab, jawaabtu waxay tahay xadiidkaasi waa xadiid saxiixa, imaam muslim soo saaray. abu qataada ayaa warinaya. abu qataada wuxuu yihi rasuulkaa la weydiiyey calayhi salaatu wassalaam can sawmi yowmi lithnain, soonka la soomayo maalinta isniin ayaa la weydiiyey. markaasu wuxuu yihi fiihi wulidtu, isniintii baan dhashay. wa fiihi unzila calaya, isniintiana qur-aanka laygu soo dejiyey. xadiid kale waxaa jira abu hureyra uu warinayo rasuulka inuu yihi calayhi salaatu wassalaam tucradu alacmaalu yowma alithnaini waalkhamiis. acmaasha waxaa ilaahay loo koryeelaa, loo bandhigaa maalin isniin iyo maalin khamiis. markaasu wuxuu yihi fa uxibu
an yucrada camalii wa ana saa'im, waxaan jeclaystay camalkayga in la bandhigo anigoo sooman. idan isniin iyo khamiis rasuulku wuu soomay, waa maalmaha camalka la rafaco. marka la weydiiyena wuxuu yidhi waa maalintaan dhashay isniinta, waa maalinta qur-aanka laygu soo dejiyey. idan soonka uu soomay isniinta nabiga calayhi salaatu wasalaam wujuh ciddu u soomay. awalan acmaasha la rafacay wuu u soomay. thaaniyan waa maalintii qur-aanka lagu soo dejiyey, waa maalintii uu dhashay. marka lagama qaadanayo dhalashada keliya inuu nabiga u soomay calayhi salaatu wasalaam. uma intaa kadib haddii uu soomana waa sunno, isbuuc walbuuna ka soomi jiray calayhi salaatu wasalaam. ma la soo guuriyey marka sanadkii maalinta u dhashay nabiga inuu soomay ama uu ku khasisay cibaado ama uu ixtifaalay? lama soo guurin, marka looma soo daliilsan karo. waa daliil baciid ah in la yiraahdo nabigaa soomay isniin, wuxuuna yiri waa maalintaa dhashay. waa maalinta qur-aanka lagu soo dejiyey, waa maalinta acmaasha la rafacayo. idan soonka uu soomayna waa sunno, wixii rasuulku uu sameeyo waa lagu daysanaya, waa la sameynaya. su-aasha 7, ma laga helayaa kitaabka qur-aanka iyo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam wax kama nacay in la ixtifaalo? waa su-aalaha ay weydiiyaan dadka banaysanaya ixtifaalka nabiga. waxay yidhaahdaan wax ma nacay ma jiro kitaabka iyo sunnada in la ixtifaalo. aljawaab, jawaabtu waxay tahay waxaa loo baahan yahay inaan ogaano marka hore cibaadada waa tawqiifiya. micnaha qofka muslimka ah cibaado walba uu la imaanayo waa in kitaabka iyo sunnada laga helo. asalkana cibaado lama samayn karo ilaa kitaabka in laga helo ama sunnada rasuulka maahe. lama dhahayo waa qalad qofka inuu yiraahdo arrinta aan sameynayo wax igama nacay ma jiro. haddii ay cibaado tahay maba samayn kara qofka. tusaale, waxaan ogsoonahay 5 salaadood ayaa la dukadaa maalintii iyo habeenkii. qofka haddii 8 salaadood uu dukado oo marka la yirahdo 5 salaadood duko uu yiraahdo wax ma nacay ma jiro, ii keen daliil igama nacay 8 inaan dukado, maxaa loogu jawaabayaa? waxaa loogu jawaabaya adigaa daliil lagaa rabaa. qofkii u istaago inuu cibaado sameeyo isagaa waxaa laga rabaa cibaadadan meeshuu ka keenay. haddii kale marduuday ku noqonaysaa, lianna asalka cibaado lama samayn karo ilaa kitaabka ilaahay qofka inuu ka helo ama sunnada rasuulka maahe. wa akhiiran, ugu dambeyn, waxaa loo baahanya dadka muslimiinta inay isweydiiyaan dhowr su-aalood. su-aasha koowaad, mawlidka nabiga calayhi salaatu wasalaam ma shay ilaahay loogu dhowaanayaa oo ajar looga raadsanayo, mise waa wax iska adduunye ah? laa shaka fiihi, waa wax cibaado ah oo ilaahay loogu dhowaanayo. qofku wuxuu raadinayaa inuu ilaahay raali ka noqdo. haddii marka cibaado ilaahay loogu dhowaanayo ay tahay, nabiga calayhi salaatu wasalaam muxuu u ixtifaali waayey dhalashadiisa? sidoo kale muxuu dadka ugu yeeri waayey inay ixtifaalaan maalintuu dhashay sanadka? lianna waxaan ogsoonahay wax alla wixii khayr ah rasuulku wuuna amray calayhi salaatu wasalaam, isagana wuu sameeyey. idan ixtifaalka haddii cibaadadaasi khayr uu yahay, rasuulka muxuu u sameyn waaye? haddana muxuu ummadiisa ugu yeeri waaye? waa su-aal loo baahan yahay inaan isweydiino. sidoo kale waxaa loo baahan yahay inaan isweydiino jeclaanshaha rasuulka aan jecelnahay annaga iyo saxaabada yaa daran. waa su-aal muhiima loo baahan in la isweydiiyo. laa shaka fiihi, saxaabada daran, sababtoo ah ilaahay baa u doortay
inay rasuulka ay u noqdaan asxaab, inay rasuulka difaacaan. ilaahay addoommadii u abuuroo dhan iyaguu ka doortay inay rasuulka garabkiisa istaagaan. jeclaanshaha ay rasuulka jeclaayeenna ma gaari karna annaga. waayahay haddii iyaga ay darnaayeen jeclaanshaha rasuulka ay jeclaayeen, ma laga soo guuriyey inay rasuulka ixtifaal u sameeyeen oo ay u dabaaldegeen? lama soo guurin. waxaan soo qaadanay qarniga 4aad in arrinkan uu bilowday. saxaabada, taabiciinta, atbaacu taabiciin, xataa 4 madhabood oo ay dadka sheegtaan madhabka xanafiyada, maalikiyada, shaaficiyada, xanaabisha, 4 a'imo lagama soo gurin. imaamu abu xaniifa, imaam maalik, imaamu shaafici, imaamu axmed lagama soo guurinin. qofkii dhahay waa laga soo guuriyey, kutubtooda way yaalaan, ha ka soo saaro. idan as-ilooyinkaasi qofka muslimka markuu isweydiiyo waxaa usoo baxaya arrintan xaqiiqadeeda, mawlidka oo mar walba dooda iyo khilaafka muslimiinta dhexdooda ku abuurayo. waxaana loo baahaya qofka muslimka inuu ogaado allah subxaanahu watacaala qiyaamaha isagoo la xisaabtamaya. waa inuu ilaahay ka baqo. camalku uu sameynayo rabbi uu ku raaligelinayo waa inay ahaato camal loo sharciyeeyey, ilaahay qur-aankiisa ku amray ama rasuulka calayhi salaatu wasalaam axaadiistiisa ku amray. waxaana kitaabka ku sugnaan, sunnada rasuulka ku sugnaan. qofka muslimka inuu isku daaliyo ma aha. qiyaamaha waa loo qabsanayaa. intee ka keentaa la leeyahay? nabigana calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri ummadaydi ayaan aqoonsan doonaa qiyaamaha. markaasaa waxaan arkayaa iyagoo dhinaca naarta loo kaxeynayo. waxaan leeyahay ummatii ummatii, waa ummadayda, waa ummadayda. waxaa loogu jawaabayaa innaka laa tadri maa axdathu bacdak. adigu ma garanaysid adiga bacdigaaga waxay diinta kusoo dareen oy la yimaadeen. idan waa inaan aada uga digtoonaano waxa aan samaynayno, khusuusan cibaadada aan samaynayno waa inaan aada iskaga fiirino. nas'al allaha subxaanahu watacaala, waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu xaqa xaq noo tusiyo, kadibna uu nagu irsaaqo inaan xaqaasi raacano oon qaadano oo aan qabsano. sidoo kale waxaan alla ka baryaynaa inuu baatil uu noo tusiyo, kadibna uu nagu irsaaqo inaan ka fogaano baatilkaasi. hada wallahu aclam, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه